xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa dib u dhis iyo dayactir ku sameysay isbitaalkii ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo muddo badan burbursanaa 14 Maarch ee sanadkan aynu ku jirno ee 2018 waxa booqasho ku tagay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdilaahi Maxamed. madaxweynuhu wuxuu amar ku bixiyay in agab caafimaad oo dhameystiran loo soo iibiyo isbitaalka xoogga dalka Soomaaliya, waxaana ciidamada xoogga dalka Soomaaliya kula dardaarmay in ay dawladooda la garab taagan tahay wax kasta oo baahidooda waxa dadkiina dalkiina u soo hooy doontaan magac wanaagsan iyo sharaf annagana dawlad ahaan iyo madax ahaan diyaar ayaan idin leenahay wax alla wixii karaankeenna oo tabarteenna inaan idin garab istaagno inaan idin la soconno xaaladda aad ku jirtaan 22 May ee sanadkan aynu ku jirno qalab caafimaad oo dhameystiran isbitaalka xoogga dalka Soomaaliya ayaa la keenay 25 Juun waxa si rasmi ah u bilaabmay shaqaalaha adeega isbitaalka ciidamada xoogga dalka kaas oo lagu adeegayo ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo qoysaskooda. isbitaalkan waxa si toos ah uga howlgala 26 dhakhtar 38 kalkaaliye iyo 8 qaybta shaybaarka dhammaantoodna waxa ay ku shaqeeyeen barnaamijka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ku dhawaaqay ee isxilqaan muwaadin isxilqaanku macnihiisu waxay tahay qof walba inuu waqti geliyo qofkii aanan xooggiisa gelin inuu xoolihiisa geliyo sidaas darteed qof walba oo muwaadin ah waxaa ka saaran mas'uuliyad inaan dib u dhisno dalka. Maxamed Bashiir Nuur Greek, Ariel TV.